caawa maqaayadda dalsan Istanbul ku taal waxaa kulan ku yeeshay oo lagu martiqaaday waxgaradka ku dhaqan magaalada Istanbul iyadoona Amir Bashir uu caawa halkan uu ka sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya doorasho soo socota 2021 maxaa ku kalifay Amir inaad musharax madaxweyne noqoto أدوان سلمان أقول ما دلنا سؤال كسي جوابته ده وسألنتهاي ما يفرق نوع آدم ما يجده كهم بقصنا يا قديم مركز أصحابت ما غيرنا فرضان وتشان سلمنا يا واحد لويس تري إلا أنا ذلك أنت أود وتحقق وكرتيد اللي دفلنا هذا نعد موجسيد دعنا ماذا يسمى هذا ما دام بدنا كشغيل نسي أنا ونقول عنك واقعتي ساسي يا وكلفتي waagartay waxyaalaha ku muuqda ama hadii aad ku guuleysato doorashada ama madaxweynaha ka noqdo wadanka Soomaaliya oo Ilaahay ku saalo qorshaaga waa maxay anigu qorshayga waxa weeyaan in aan muujiyo sinaan midnimo qaranimo isdhexgal bulsho dhisid horumar wadanka inaan u sameeyo dalka diinta iyo dadka waagartay waxa ogtahay in Soomaaliya in madaxweyne laga noqdo sahal ma marka qaar waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waxay u baahan tahay asxaab far badan ama siyaasiyiin badan inaad wadanka aad ku leedahay taa maxaa ka yeelaysaa arintaas waa fududahay anigu waxa weeyaan shakhsi Soomaaliyeed oo aqoon-yahan ah oo gara kala habdhaqanka siyaasadeed rag badan iyo dad badan aan ku xiranahay waa jirtaa laakiin anigu wax dhaqaale hadda aan la imaanayo ma jirto dalka inaan ku hogaamiyo because dalka waxaa la soo diray waxa weeyaan nin macnaha budget qaata oo lacag bixiya dhibaato ayuu kala kulmaa because waxa weeyaan qof walba inay kontorasho ay jeclaanaysaa laakiin tan wadaniyadda ah waxa weeyaan dadka inay ku doortaan codsi aad ka heshid kabacdina sida ay rabaan danta guud inaad ugu hormarso waxaa la soconaa musharaxiinta ama qofkii doonaya dalka inuu madaxweyne ka noqdo waa inuu dhaqaale fara badan haystaa ama dalal ay taageerayaan adigna hadda waxay leedahay wax dhaqaale aan bixinayo ma jirto sidee isku qabanaysaa waa isqabanaysaa wixii ilaahay cafo iyo noqonaysaa anigu inaan tiigsado oo aan mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed aan iraahdo mataqaanaa inaan u noqdo hoggaan daacada oo Soomaalinimo aan ku hogaaminayo oo aan ku fadhin nin qarash bixiya ama budget bixiya aan ahayn وهاجك مدو حد جوكتي أما تكون ولا دلك كنا ذو شقوين كنا قد سنة كذا قبضتي هاتن تركيا نلا جوكتا وديجانا تكون هاي مقالة أنقرة إنك صادا جوكتو مقالة إسطنبول غورمي لقى يا بودن كينا تكتو أدول الله هاجي أتكبل أود الصومالي إن شاء الله إلهي غالب دوكان مقدر إن شاء الله هي أسمع possible وقت لو وأن فوقين هذا بال أو بالك بعدين أنتهوا دلك أي رجينيسا محد لا هاي دتك كداونا يا مؤمد الصومال هذه أقول ما علينا وواحد هو سؤالكتين خليك وحرمنا إنه نكسرنا وبعدين تاي مثلاً إن هرمر الجرسيو إن مثلاً وحلو هي مثلاً علاش كده الصومالي ما دام أنتم ودك ملف عن مري إن هو دمشق نصير عن عالم كله قبشة أمير بشير وعام الشرح مدحويني وتاجن برداشة صوت طلبة كوني كوي لبعتك وعاو مقالة إسطنبول قران مقاعدة دلسن كجدا واقعي إنه يهي مشرح مدحويني دورشة صوت وما صدق أمير بشير هذا بس ما كل ما هذه تيمكي